kulan haboon daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamij kooban oo markaasi aan ku eegi doono taariikhda magaalada Qalcad oo ahayd magaalo taariikhiya waxaana daawadayaal aan barnaamijkeenan markaasi idin kula wadaagi doonaa qaybaha kala duwan oo bulshada oo ka hadlaya taariikhda magaaladani sidii ay ahaan jirtay iyo haatan sida ay tahay iyo waliba xilliyadii kala duwanaa ee ama markaasi xilligii ay caanka ahayd ee taariikhdeeda ama dhaqdhaqaaqeedu uu aad ka u jiray nala daawada barnaamijkaasi ku saabsan taariikhda magaalada Qalcad aan soo qabano daawadayaal qaybo kamid ah hadaba markana bulshada oo ka hadlaya markaasi taariikhdeedu magaaladani sidii ay ahaan jirtay Aamina Abdisalaan anigu markii hore ee adduunyadana dhisnayd waan yaraa laakiin intii han reer yeeshay un baa waxaan yahay imaatay nacam kolka wuxuu aabahay han ka maqlay kolka xilligaas anigu waa ka yaraa kama sawirsan markaas wixii han maqlay uma ku sheegaya wixii han maqlayna saylac in laga soo qaaday baayacmid shirka oo Qalcad la keenayay oo ma arkaysaan adari la geynay oo lagu kaalkan lagu kala iibsanayay oo baana bay ka maqwaana Qalcad magaalo yahayd baa la gidi magaalo idnana oo weyn bay ahayd markaas kolku dadkii magaaladii dadku ku dhamaaday tirdabay ku guurtaan dadka wixii ku haray halkan tirdabu ku guuray baa kolkaas waxa la wuxuu ganacsigee wahaa anigu waxaas kama sheekayn karo mana ana rag kamana taariikhan intii aan maqleen waa inta aan aabahay waxaan ka maqlay halkana aabahay baa keeni jiray buu iga yiri baayacmid shirkadko ka soo qaadi jiray sayla marka halkan uu keeni jiro adari baa lagu geyn jiray lagu kala iibsan jiray iyuu yiri sidaan baan aabahay ka maqlay kolka aniguna nacam taariikh kalena kama aan reebin walkanaana ku dhashay halkanayna maxay had Qalcad bayna ahayd ma arkaysaan baayacmid shirkad waa laga soo qaadi jiray halka magaalada saylac baa laga soo qaadi halkan la keen jiray adari baa la geyn jiray maxay kolka aabahay baaba kamid ahayo ka shaqaysan jiray waa baayid maalna waa Qalcad halkan aan ku dhashay sida uu bayad inta aan aqleysay sida uu bayahay waxa qalo ka dhisnay wax dadoo joogay midna ma jirin sida uu bayahay kolka waa aabahay uu ku dhashay uu isna kolkaas kolka kuma kala fiixowda aabi uu sheegano in kooyar ba aabihiina la dilo la oo kontarba ba lagu dilay baayacmid shirka marka wuxuu isna maqlay uu budaanay hay uu yaraade kolkii uu yaraayo kolka halku aqalkoogu ahaa iyo ma arkaysa waxaas isaga ka warami lahaayo sheeg la ma garanaysa kolka wuxuu yaraan baa bayna lagu dilo baayacmid shirka lagu dilo halka kolkii magaaladii baadeen tirdaba la geeyay ma arkaysa baayacmid shirkuna wuxuu tagay adari bas anigu waxaan baan wax kale looga kala magaalo kale looga gudin jiray ma jirin buu yiri saddexda magaalo uu baa jiraysu yiri kolka magaalada tirdaba lagu guuray baaba afreynayso halkan qaybtan waa maskiidkii buu yiri maskiidkii buu yiri halkana waxay ahayd buu yiri jibri bay ahayd buu kolka jibriga anu wuxuu ka dhigan yahay aan xaq kolkaas wax tacliin dhigata waxaan kala fahmaysaa jibrigu wuxuu ka dhigay ma garanay kolka mala xoolaha lagu kala iibsanayay iyo hadalku iga dhigna xoolaha kamid aha ee lagu kala iibsanaysan gabay hoode kale gabayhu aanayo oo kale iyo lagu kala iibsanayo laba aqal oo yar kala duwan ba halka ka kala dhisnaa isku yar garaba mark kolkaas ayaa la waxay ahayd baa la jibri jibrigiina kolka waxaan ka aqli ahaanteedii ka fahmay in ma arag waxa xoolaha lagu kala iibsado Kawsar Maxamuud oo kamid ah ama xubin ka tirsan xafiiska ee dalxiiska ee ismaamulka magaalada Dirdhabe ayaa nooga warbixinaysa iyaduna taariikhda meeshani ay leedahay iyo waliba isbedelada haatan ka hor ka jiray iyo xilligani waxa ay ku sugan tahay magacayga Kawsar Maxamuud Maxamed baa la dhahdaa meeshana waxa la yiraahdaa Qalcad waa magaalo qadiimiya waa magaalooyinku magaalo noqonin aad hortood magaalo wahay oo Dirdhabe ku horeysay qiyaastii markaas 35 kiiloomitir bay Dirdhabe u jirtaa magaaladan waa magaaladii ganacsiga lagu kala qaadan jiray ilaa iyo dekada Tajoora ilaa iyo Saylac marka laga keeno halkan lagu daadajin jiray halkan baa dabadeedna halka geel buu kaga iman jiray marka halkan dabadeedna waa laga raran jiro Harar iyo meelihii la mid ah hal isticmaal jiro dhulku gaadiid lahayn marka ayaa la geyn jiray marka Qalcad magaalo aad u mug weyn bay ahayd dhulkan aad arkaysid wixii dudumay daadkuna uga dambeeyay marka halkaan waa halku sheekhi ku dhintay Sheekh Cabdiqaadir baa la yiraahdaa Ilaahay u naxariiste dadka degmaduna waxay sameeyaan way siyaartaan xataa neefaf baa lagu qataa xadray noqotay meeshu marka Qalcad taariikhdeedu sidaan u arkayna Dirdhabe way weynaatay mar waaxid magaalo aad u qurux badan oo ballaaran oo aad u fiican bay noqotay marka nin walba deemka dhulka casri buu gaaray moogtahay nin walba warshada wadankii soo galay oo
hawluhu dhulkaaba wareegay gaadiid baa yimid diyaarada yimid hawluhu imika de waynagan gaarnay waqtigii de qarniga koobiyo ma jirto marka qalcad kulay de magaalo taariikhdeeda la iloobi kara maaha waniga arkay talxiisayaashu way yimaadiin de adduunkuba taariikhdu ku socdaa ma ogtahay marka waa taariikhdu waxa laga daba taagan yahay loo taaban way markaysa sida loo meeriyay naamtu waa la ilaaliyaa aad oo dad baa u shaqaaleysano ilaaliyo oo dhowra qalcad taariikhdeedu waa taa kulay de dad naga mug waaweyn oo odayaal oo hadii loo sii hoos dhaadhacana de wax ka sii badan sheegi lahaana de way iska jiraan waqtiga imika daawadayaal halkani waa magaalada qalcad markii dhaweyd meesha aynu joognay waxay ahayd goobta taariikhiga ah ee magaaladani loogu magac dalay halkanise waa magaalada gudaheedii oo ay ku nool yihiin bulsho badan oo goobtani taariikhiga ah markii halkaasi ay ku taalay halkan laga aasaasay guryo kala duwan oo dadkii halkaasi ka ganacsan jiray ay guryo ka samaysteen walina iyadu way sii jirtaa oo sida goobta taariikhiga ah ay markaasi u burburtay uma burburin magaaladu way jirtaa oo waxa jira bulsho badan oo ku nool iyadoo waxyaabihii kala duwanaa ee magaalanimadana ay u dhameystiran yihiin sida iskuuladii xeradii booliska iyo waliba meelo kale waxaan eegi doonaa qaybo kamid ah bulshada oo markaasi goobtani iyaga oo ku sugan inoo sharixi doona meeshii aynu soo aragnay ay goobtii taariikhiga ahayd iyo waliba magaaladan laftirkeedu taariikhdeeda iyo sida ay ahaan jirtay iyo sida ay haatan tahay magacayga Dabar Maxamed Cabdille bal meesha aan ku noolahay waxa la yiraahdaa qalcad goobta taariikhdeeda wallahi horta waa meel soo jiraan bay ahayd waqtiga meeshaas maxaan ku idhahay magaalada waqtigii la aasaasay dirdhaba ma jirin de maxaan ku idhaa horta imisa boqol adigu 200 oo sano meelaha inay ka horayd baan ku wadaa de meesha de dirdhaba way ka weynayd kolka waxa jirayay maxaan ku idhahay 3 meelood baa jiraysa xilligaas qalcad sayla harar adari loo yaqaan imika harar la yiraahdo ayaa jiraysa waqtigaas safarka halkan ka guuri saylac kulku tagay saylac buu ka soo qaadayay alaabta halkan buu keenayay harar baa laga imanayay halkan baa laga qaadayay haddana harar baa la geynayay marka meesha waxay ahayd isku xidhaysay bay ahayd hariyo waxay isku xidhaysay saylac maxaa la adeegsan jiray xilligaas waxa la adeegsanayay awr gaadiid baa la adeegsanayay awr baa la yiraahdaa ama geel baa gaadiid ahaayo gaadiid baa loo yaqaanaa awr buu ahaa kolka waxa laga keenayay milix maxaan ku idhaa timir maxaan ku idhaa bariis maxaan ku idhaa sokor de ay nooc wixii ay magaalo lahayd baa laga keenayay saylac xoolaha ka waran iyaga ma la isku dhaafsan jiray saylac baa halka laga keeni jiraan ku idhaa xoolaha waa la isku dhaafsanayay oo maxaan ku idhaa de meeshu gabayay ahayd gabayay lahayd maxaan ku idhaahdaa waxa fadhiyay qolada cashuuraadka fadhiyaysay jibruug bay lahayd jibruugan baa lagu cashuurayay halkaas ay xooluhu sida uga baxayeen ilaa saylac baa lagu soo iibinayay wadankana laga kaxaynayay ganacsiga meesha idila u furan bay de ahayd maxaan ku idhaahdaa Itoobiyadan baa wax ka soo galayeen waxna ay ka baxayeen iyay ahayd hadda maxay iska bedelay ama taariikhdeedii oo kale horta sidaan soo aragnay meeshii taariikhdeeda waxa iska bedelay kulli waad aragteen oo way taburbursan waxa iska bedelay ama sa goobta ka guuritaanka waxa sababay waqtigaas ma jirin xadiid waad garanaysaa baan malay tareenka waad garanaysaa baan malay tareenkii baa la bilaabay waqtigii tareenkii la bilaabay halka uu de imika maray buu maray tareenku iyo de maray de la gaarkii weynaa iyo meeshii wixiina waxay noqotay de tirdhabay noqotay tirdhaba cishada baa la haasaasay cishada bay halkanina iyay baabaaday kolka halkaas bedishay oo dadka maanta ku nool imika meelaan maxaan ku idhaahdaa qolo kastiba de halka way ku nooleed carab baa ku nooleed xamashi baa ku nooleed Soomaali baa ku nooleed oromada way ku yareed adigu waqtigaas oo ma la isma dhexgelin bay laakiin soo laga arkay iyada caynteeda habasan noqotee imika carabtii kooneel qabo oo sari u celi kooneel waad garanaysaa de magaalada tiro kooneel qabo oo sari u celi ilaa iyo qafiirka
carab baa fadhiyeysa صح carabtahay tii halkan ka tagtay weeyaan tii halkan ka tagtay weeyaan carabtaas xaruntii halkaasay noqotay halkan waa laga guuray oo dadku buurtan madow buu galay xaggan kililka oromada iminka haamo oo kale maxaan ku dhahaa dhulkaas waxaad ka arkaysaa dadkii carbeed ee halkan ka guuray ee ka tegay ee halkaa tegay iyaad ka arkaysaa meeshana baabi eega dikada ka baydhay dee dariiqa ka baydhay unbaa maxaan ku dhahay baabi eegu iyuu kow ka ahaa waayo dee dadku xaggii ay magaala jirtay buu u guuray dee kolkuu dee yani mataqaanaayo si kale kuma baabiyin ba haadee sidaa darteed baa looga guuray dariiqaa baana raray dirdhabaana bedishay dadka tirdhaba ku nool maxaan ku dhahay bar oo bar dee awalkii hore halkanay ka kaceen ay degeen ba magaaladan yari ee hadda u dhow meeshii laakiin waa dadkii halka deganaaba halkan guriga ka dhistay ha kulley waa tafiirtii kulley tooli waa tafiirtii waana la iska degan yahay wixii ka daba imanaya ka daba yimaadee dadku tafiirtii qalcad ka soo qaxay iyo kolkay qalcadu socotay dee intii itaal weydee meesha fadhiisatay dadku waa dadkii uun kolkay sidaa dhacday dabadeed eeg dee maxaan ku dhahay magac kalaa loo bixiyo magac daayeer baa loo bixisay eeg halkan yildaysa baa la yildayso afarmo baad garanaysaa ma yildaysa maxaa la yidhaha daayeer baa la yidhahda magacaa baa loo bixiyey sababta loogu bixiyeyna si kale mayna buurta kolka jaadka laga keeno halkaa saruu maxaan ku dhahay aqalada daayeerka halkaa yaree sara meesha qarida oo daayeerku galay waxaa la odhan jiray dee yildaysaan geeyey jaadka yildaysa iga soo iibi yildaysa iga soo iibi jaadka sababtiibu magacan xunina iyuu ku soo baxay iminkana waa laga dadaal galay waxa lagu celiyey halkeedii qalcad baa laga dhigay iminkana bismillah kolle magacay waxa miisaan daahir meedhana la yidhaha meesha ku sugan qalcad baa la yidhaha kolley taa qalcad wixii aan ka maqlay waxba aanu kama soo gaadhin laakiin sidaan ka maqlay waxa weeye qalcad waxay ahayd sida iminka inanka igu horreeyay u soo sheegay waxay meel saddex magaalo isku xidha saddexda magaalo isku xidhaysa waxay saylac iyo herar oo waaga adari la odhanayay iyo qalcad bay iyo labadaba isku xidhaysay u dhaxaysay ahayd sidaa baan kuyaan ku maqlahayn ilaa 200 sano laakiinse anigu waxaan soo gaadhay ninka yidhi shaah baan ka cabbay odayga yidhi iyaan soo xilligay jirtay iga sheekeeyo shaah baan ka cabbay yidhi iyaan soo gaadhay anoo yar wuxuu ku tilmaamay meesha inay caasimad ahayd inay sayna ahayd oo gabayaha weyn inuu ka jiray inaa safarka ka yimaada saylac inuu halkaa degi jiray dushana inuu ka iman jiray adari laga iminayo herar dhulka loo yaqaanana in laga iminayo halkaa lagu kala bedelanayay raashinada iyo wixii dacaak laga keeno goob lagu nool yahay ayay ahayd oo magaalo weyn oo qadiimaha ahayd sida taasuu iga sheekeeyey waa sax weeye waxyaabihii markaasi ay caanka ku ahayd ee xilligaasi aadka dadku isu dhaafin jireen maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa dacalka waxaa laga keeni jiray sida shokorta iyo bariiska iyo timirta iyo shayada imika huwiskee la xidhaa sida dharka iyo dacalka laga keenayey xagga sarena waxaa laga keeni jiray sidaan ku maqalay wixii qudaarada xagga ka baxa buurta iyo xawaashka oo kale iyo garowga waxaabaa laga keeni jiray hoos loo qaadi jiray waa la isdhaafan jiray waxyaabihii la isticmaali jiray ama dee xilligaasi ma jirtay lacagtu mise xoolo iyo waxbaa wax lagu kala bedelan jiray maya lacag baa lagu iibsan jiray waa qarnigii lacagta shaqaynaysa lacag baa lagu iibsan jiraan maqalay kolkaas saynadna weyna way ahayd oo gabaya meesha yaa ahaa qoladii cashuuraadkana aqaladii yacni joogayeen sida kolkaa imika nana tusay yacni dhulkii ugu dumay laakiinse way sii muuqataa iyo saynadii way sii muuqataa imika ay maxaa sababay inay sidan oo dhan laakiin u dunto waxaa sababay horta kolale dadka haddii la dhiiri geliyo san uma baaba'deen waxaa la waayey wax yacnaa dee hawsha sii dabagalay oo dee sii xiiseeya ayaa la waayey kolkaa taas yaa sababtay ahayd ta kale labaadna baaba'an meeshan waxaa ugu wacnayd kolka imika iga horreeya soo sheegay kolkay waa laga weecday waddadii oo tareenka kolkii la sameeyey iyaa laga guuro taaba baaba'ana ugu wacnayd meesha saan maqalay dadka kale aleyta imika halkan yaallay waa dadkii dee meesha qalcadka xadheenka unaha ee tafiirtiaasu inanka waras sheegayay dadka yaallay waa dadkii sida uu sheegay qalcad bay dee iyay ahayd qalcad waxaa laga wadaa yacnaa ee kor aleyto meel dad wuxuu ahaa dhulkan dhulbeereed buu ahaa dhulbeereed ayuu in walloon sii dhex gelayn kolkaa amba garowga amba boqollada xasee yacnaa qaran cad baa dee jirayay meel cadnada way ahayd oo yacnaa aad u socotana way ahayd ganacsigeeda yaa xooganaa waa meel cad waa meel cad baa ayaa lagu magac daray ahayd
ha wadada hormartay laba wada weeyaan mid waxa isku xidha annaga kala arato miday tigtaa oo halkaas oo qabalayaasha imka annaga kamid ay sii dhex martaa oo garbaana si ilaa jiri iyo kilalkan afraad way tigtaa xagan sarana in qabalayaasha tirada in kamid ah iyo u yaacataa wada kale meesha idna ka yaacatina kolka wadada hormartay dhaqaamay rakaabiya jira dadka iska goosh ah ganacsi waxa uu ka furmay ma jirto ay ganacsigii hore u raacay markana daawadayaal waxaan soo qaadanaynaa hoggaanka nabadgelyada ee magaalada Qalcad oo lagu magacaabo Axmed Cawaale oo isaguna nooga warbixin doona taariikhda magaaladaasi Qalcad bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Cawaale Caynaan baa la yiraahdaa waxaana hoggaanka nabadgelyada qabalka Qalcad horta magaaladu horta waa adduunyo qarni walba taariikh buu leeyahay kolka macnaha qarniyadii sida maqal ku soo maqalay amba saan ku soo gaarnay waa sabab kala duwan macnaha Qalcad magaalo waxay ahayd qadiimi ahayd magaalada horeysa ahayd Itoobiya wax bad ka soo degay meesha uga soo degay Itoobiya ahaan jirtay halka waxaan jirtay meeshii la oran jiray Saylac bay ku xidhnaan jirtay boorka waxay uga soo degayeen bay ahayd geela la yiraahdo awrta waxa la rabaa wax soo qaadi jiro gaadiid waxa la isticmaal jiray awr bay ahayd marka ma jirin gaadiid ma jirin bay ahayd waxa awrta loo maratiga loo yaqaan ayaa la isticmaal jiray waxay ka soo qaadi jireen Saylac waxay keeni jireen Qalcad waxay kale si jahaar bay geyn jireen bay ilaa Dhisabalka baa la geyn jiray kolka taariikh badan oo mataqaana hadda ka soo maqalaa jira maanta ay joogto arkayna kolka haddaan ka hormaro taariikhii ay Qalcad lahayd halka waxay boorka halka iyo boorkii ugu horeeyay halka Itoobiya ka baratay ahayd meesha ilbax iyo wax bad ka soo degan ugu horeysay Itoobiya soo galay ka ahayd maana wax xasuus mudan odaabay ku jiray boqolyaalta sano ahayd dadka ka gaacsan jiray ku jira bahay Allah naxariiste ayuu ku jiray waxaan xasuustaa walaalay mataqaana Itoobiyadu ciidamo ay lahaan jirtay ciidamadu bariyaa wax ku dagaalami jireen seefay ku dagaalami jireen bay Itoobiya way qarnigii qoryaal lama aqoon bay waxa ay ugu xushmad ama xasuus badnayd buu yiri maalin baan awrgeynay buu Saylac waxaad qaadaysiin baa la yiri waxa loo yaqaan buduqda oo dhulka lagu aqoonba ayaad qaadaysiin baa la yiri awr baa lagu soo raray buu yiri Qalcad baan keenay buu waa waxay bawrid bugta ugu horeeyay Itoobiya way qoryaha halaha qoryaha buduqda la raadey ciidanka qalabka ciidanka qoriga hal la oran jiray aw maadna wax u bixiyay Faransiiska u bixiyay Saylac Itoobiya soo dajiyay waa meesha bawrid bugta wax ugu horeeyay hadda magaalada Saafiya ku xigay moogta taariikhda aan iloobi la ahay waa meesha wax bugidada aalada ciidanka qaranka Itoobiya wax bugidada bawrid ay lahayd halka ka soo degtay Qalcad bay ahayd markaan xasuusto iyo heerkay ma taagantay markaan xasuusto farqi baa u dhaxay horta iyada maxaan uga jeedaa meesha meel la qadariyay idan mal adoona waxaan garanay kaga soo dawad garanaysa waxay taad garanaysa marka qadarta ay ka maqato qalad way meesha way dunto waad arkaysaa way duntay dawladdu kama ilaa laakiin waxbay ku xidhay laakiin taariikhii waa in lagu xasuusto yahay marka maalin dhawaad dacdo wayno maanta waxaan weydiinahay war meesha maxaa ka shaqayn jiray gaadiid ba ka shaqayn jiray maxay uga baahan tahay wixii waaga gaadiidka in taalo laga dhigo war waxaan muxuu ahaa wixii waaga gaadiidka ahaa in la yiraahdo dhasha naga dambeena xasuusato taabaan uga baahnayn loo sameeyay way waxaan caruuruhu maxay leeyaan waxaan maxay ku sawiraan muxuu waageen maxaa looga jeedaa wixii waaga gaadiidka ahaa ay lagu shaqaysan jiray ahaayeen marka inaad taariikh oo geeli aad ku muujisaan meesha doonaysa sawirkiiba in laga dhigo meesha way kuwa naga dambeeya xasuustan yaadiin waa wixii waaga gaadiidka iyo gaari bay soo gaadheen idaan tay waa horta aad uga dawladda aniga doonay weeyaan ka codsanayna weeyaan marka ganacsiyo badan baa ka jiray meesha ganacsiga waxa lagu bilaabaa la yiri in ganacsiga buurtu waxba ka baxo badna waxba ka soo dhoofa waxa ka soo jira timir iyo milix baa ka Saylac ma jirtay xaqana haruur waxba ka bixi jiray ganacsiga ka hor waxaan malqay lacag ka hor inta lacagtu ba jirin in wax lagu bedeli jiray oo milix marka la keeno haruur ba ka baxo qolada hoos haruur bay qaadan jirtay qolada milix isbedel bay sameeyeen jireen ilaa uu yimaado nidaamkii dawladda milix uu yimaado oo meeshii boor loo sameeyo oo lacagtiba la keeno ka hor maxaa jiray cunto ku bedel يا جرت وهاك لقى بلا بهرتك ليس لا فيك لعقت ما وجه لما أقول كل كام ملك باك أنا جرجع ويمدي كان مدام كده ولد بكسور وعشور بكسور لعقتنا وكان يحيي هل كابي صوت طريق وصومرين به لكن كان أحسن واحد سوق قال إن اسكو بدل وايد اسكو بدل أو تملح وكان هرب بها سوق هذا معنا وارون هرت قرن هي بدن بار صومر ودولد كل دون بار صومري إما كدولد دي هراء دولدنا إما كواحد تصميس دير بيس سميسه أقرب كديسين ودير كبيس سميسه marka dawladii hore ma bad qadarin birba markii tareenna iyo qalab casri ah la arkay meesha in la iska ilaawaa dhacdo tareen baa la sameeyo qarniyada tareen baa la sameeyo tareen tidaba tareen loo sameeyay kolka hadda boorkiisa oo Djibouti waa la sameeyay boorkiisa waa baabay boorkiisa la Djibouti waa biisay qalcadda tareenkii baa biiyay
awrtii iyo muurkii maxaa biyey tareen technology baa yimid baabuur baa imatay ayaa yimiday tareenkiina kaartiisa u garan maro waa kada ayuu dirrabo maray marka in dadkii wax dhintay wax guura ay noqdaan baa dhacday marka laakiin ma in lagu xasuusto ahayd wixii ay soo qabatay iyo dalka waxay u lahayd in la muujiyo magaca bay ahayd tiina wali bay shirkad la dactirahayd marka maadaama inka wax soo maqanay dawladda wax qabatay in haddana la soo kordhiyo rabnaa oo marmashan maxay ha jirtay tusaale waan ay ku soo qaatay aalada dalka lagu daafaco boord bugta meesha uga soo degtay maahay halka bay ahayd xidaa midaan wax lagu qalay waa birahani halka bay ka soo degeen bay idan barkan ma banaanayn waa dhulka lagu xasuusto ma garanaysa kolka meesha ay inta u sartay dadkeenan Ethiopia jooga boor iyo wax bad ka soo dagan ugu horeysay wali xasuusteed way maqan tahay in xasuusay la sameeyay waa ku jiraa ala hadda magaalo waxa jirta magaaladani aynu hadda joogno tafiirti halkaas ah iyada ka waran xaalkeeda iyo dhanka horumarkeeda sidoo yahay walaalay deena waxna inta way kaaga muuqdaan waxna waan kaaga sheekay karaa macnaha halkan dikada caadi ba marto deemka dikadaha jiris laakiin imika horumarka socda si hajirti hore macnaha kolkaan eegno istaraatiijiyada markaan eegno dikada madow imika la sameeyay halkan waxa jiri jirta ilaa horumarka meesha la magaalo ma jiri jirin dadku malaayiin qof baarkan ima jirta ahayd imika la magaalo baa dikada madow laga sameeyay dikada mina way garan martay ahayd kolka horumarkii ay lahayd markaan ganacsiga ay markaan eegno dikadana ayadna beenos oo dhulkii qablooyin badan baa la sameeyay dikadana waa la sameeyay inuu isdimaad mooda laakiin ganacsiga horta qaarkood qaadka oo kale markaan eegno ganacsiga dameeraha keena qalcadda dameeraha baa keeni jiray taariikh wali waxa socda jaadkii u iman jiray qalcad oo dameeraha keenaan baalkan yimaada imika oo taasina ka jira ganacsiga xagga maartay ganacsi oo malihiin oo imika dadka safarku dirba ka soo qaataan xagga wax naga soo galaan xagga wax naga soo galaan waa sax imika halkan waa run oo inta magaalo gabareed ay hadana dhaqaaq ganacsi baa ka jira oo urur haweenaa jira oo dad aad moodo inay qacad ka nool yihiin maskaxdoodii ayaa jooga oo marka in kasta ay dikadan ay mareen hadana ganacsiga u socdaa oo ururada haween baa jira ku dhalinyaro jira oo xoogsada jira ma garanaysa maamul aad iyo aad buu fiican yahay dugsigani wuxuu ahaan jiray ilaa 8 dugsi hoose dhexe buu ahaan jiray dugsi sare ka noqday dugsi ayuu noqday taa dawladda ugu mahadnaqan ayada oo xaqii dugsigii heer baa la gaarsiiyay ilaa 12 way ku muuqata badal doonanaya heer dugsi baa jira waxa si dheer waxa dhaartii bartibeed waxa cuntada waa lagu sameeyaa dadka sidii qabalaa imata maadaama ay yihiin dadku dad xoolo dhaqataa dawladdu way dadaashay maadaama dadka badayayeen ay guurahayeen maxaa ayaa la yiri hadhaartii bartibeed baa la sameeyay cuntadii bal waxaan dawladdu ugu mahadinayna weeyaan iskuul waa la sameeyay taa heer baa laga gaaray waan ku mahadinaynaa in soo biirana waxaan rabnaa weeyaan taa dawladda 100% mahadnaq aad aan siinaynaa awalku wax badan ka jawaabay marka ganacsiguna nibitaalkiisa uu socdaa oo dadka way socdaan oo ururaha jawaan ka wadayahayd marka xagga networka kala diintiina waa noo sameeyay oo inka caatay ka taagan yahay waa marka ko talabada labaad ee la qaaday ka dhiganta marka xagga dawladdu aad bay wax u wadaa laakiin qalacdan ahaan markaan eegno iyadna waxaan leenahay alla biiriyo oo taariikhi alla biiri ma waxaan leenahay waa in baarki laga sameeyo inka dir waxaan ka arkay meel baarki leedahay oo taariikh laga xusaa jiray laakiin baarkiga taariikhi qacad buu yaallaa waxaan leenahay dawladdu way arkaysaa waxaan leenahay in si degdeg ah amba horumarka ee tourismka inay la sameeyaan rabnaa ayaan rabnaa marka waxa yimaada dad Amerika ka yimaada yimaado warqad sitaa yimaada kala bari basoo qacmeesha la waalkay warqad way sitaan marka tourism ay ka soo qulqulaya hadda marka yimaadeen wax indhaha soo jiitay inuu ka sameysana taana waan ka codsanaynaa oo ma taqaanaa de baarkiga iyo dhalinyarta amal loogu abuuro ay meesha ka saftana waan ka naga codsanaynaa la muujiyo oo baarkiga wax lagu beero oo biyo laga sameeyo taaban aad iyo aad ugu xabsanaa waana ku erayahayd war wixii la gaadiidka hana magaciisa lagu dhigo taana waa taan imka iga sala beerka weeyaan takala walaalay waxay sii dheer adoo mahadsan maalin dhaw qola fanaan la leeyahay iyo maqashad magaca ka bedilay meesha waxa jiray magaca jinsiga jirtay qalcad imka lagu qoray dad badan ayaa nala soo hadlayo oo heesaa ma sameeynay dawladda iyo qalcad lagu amaanayo nacam taariikheeyii anagoo ka hadlayno oo heesaa ma sameeynay dad soo boqonayno inaan heesa sameeyno oo ku amaano dawladda heerka ay gaadhay magacii ka bedishay iyo heerka ay taagan tahay maanta magaca la muujiyay in heesa u sameeynaan wayna soo boqday ma garanaysa tina kobcinteedii baan u raadcaynaa oo maara inaan muujinaa rabnaa waayo sida qabal xukumaysa dad ballaaran baa ku nool oo laba saddex fuqarada ayaa xukutay degmo u tahay intaana inaan marti qaadno oon taana xitaa muujinaa rabnaa taariikheega iyadoo nacam maqli mooyaan rabnaa nacam jacayl inaan ka soo gaarno cid kasta oo maqashaan way nala soo hadlaysaa ma magacii ma la bedilay qalcad waan qadarinaynaa bay leeyihiin oo magacii ay doonayaan ha wala faraxsan yahay ila jibta ayaa laga soo hadlaya meeshii ma la bedilay wala soo magaranaysa dawladda wal adeed baa lagu soo maadinaya maadaama ay tarinta qalcad ka aragnay taana anaguna nin walba kartidiisii inuu ammaan dawladda iyo magaceeda lagu
iyaan rabnaaba qaarkoodna soo hadlahayn bay ahayd taariikh waa taa ku tala jirta qorshaan guud ahaan daawadayaal intaasi waxay noogu eeg barnaamijkeennii koobnaa ee markaasi aynu ku eegaynay taariikhda magaalada Qalcad oo ah magaalo qadiimi ah isla markaasina ahaan jirtay goob ganacsi xilliyadii hore intaan barnaamij noocan ku kulmi doono nabadgelyo